waxaa iyada nugta marka kan yare hadda caawa ijaazada ku qaadan doona nadmigan oo Cabdililah Hawe aka koofiyada xiran ayaa mid kii weydii ka ahaa Ahmed baa weydiiyay yiri war cunaysa ma taqaana markaas uu lahaa xagee ku taala markaas uu kitaabkii ku taala يا كتابك يقول لا انت سيبك كتايبه ولكنه حافظها فخليه يحفظه مركو راس يحفظه كدب معنا ان شاء الله واسكبرن دونا مناسبات او ارضو جامعه كقلين جبيه شهادات لو بخينه يان كقيب كل جيرنا لكن ثاني وسابق لاول مره مناسبه نوعا كقيبنا هذانا waxay nugta kale ku sii wadata waa hal qoys marka ilaahay idin barakeeyo ilaahayna tabaaraka wa taala hadana muxuu ahay hooyooyinkood badan yihiin sheekhu xataa garan waayay muxuu ahay Allah idin barakeeyo jazakallahu khair ilaahay tabaaraka wa taala waa idin bareeyna runtii quraanka ilaahay idinku galladaystay waa nicmo weyn waxa ilaahay tabaaraka wa taala oo idin siiyo wixii ilaahay bixiyo wixii ugu qaalisanaa kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkan gaarka ah ee haddana muhiimka oo aynu ku soo koobayno munaasabad ka qabsoontay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga oo ay ka soo qayb galeen Sheikh Maxamed Cabdi Umal, Sheikh Abdirashiid Sheikh Ali Suufi, Sheikh Maxamed Idris, Sheikh Abu Dalha, culimo iyo waliba waxgarad kale oo lagu casuumay. munaasabadan waxaa lagu dhiirigelinayay qoyska Sheikh Xasan Waajidi oo qaar kamid ah caruurtiisa iyo waliba marwo uu qabo laga dhageystay kitaabo kala duwan oo ay dhameeyeen iyagoo horeyna uu ahaa xaafidul quraan ama dad kitaabka quraanka kariimka horey u dhameeyay munaasabadii waxa ay u dhacday sidatan ahlan wa sahlan bikum jamiican waxa munaasabada halkan aanu isugu nimid في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى وحوي أن تكريم إجازة لأولاد أخينا حسن الواجدي وقرقي شان جوغنه مجلس كانوا حقيقة وكما عابي مجلس القرآن وهو مستحق لهذا يعني لهذا الاسم waxaan arinta u leeyahay waa liltaxriid iyo in khayrka laga daydo waan ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku manaystay awalan caruur fara badan ilaahay siiyay awlaaduhu sii sheegay 22 way wala 21 tani labo ولسه شاب يعني ونكا arkaysaan alwaajidi mashhuur macruuf marka wuxuu ku talagalay kulligood inay xufaad li kitaabillah ay noqdaan وليبقى متونتي أي كدر سدان وفرغهم تفريغ كاملة يسميه ما شاء الله للحفظ وللإتقان مركا القرآن ويلما ينقلون كعاوة هدان هل كان إجازة دان كسين دونه لكن إجازة وحال كسين يا ومتون أي يقبحين كده يشتي من أول إلى آخره وحاك كو أوجوين متن الإمام الشاطبي متنقاس إلى حرز الأماني ووجه التهاني وكما عابي الإمام الشاطبي وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا ولكنها وحي اشتهرت وحي شهرة كيالتي بالشاطبية نسبة إلى الإمام ناظمه وهو الإمام القاسم بن فيرو الشاطبي رحمه الله المتوفى سنة 590 للهجرة كفيف بوها أنا وحبا أركن ولكن نور الله بصيرته نظمي أو سميين نظمي لا سابق له علماء ذو ولا لاحق له كذلك ما إلهي ونسوء فريء بيا هذا عجائب له وتصنيف كتاب وإمام أبي عمرو الداني الحافظ المقرئ الكبير المشهور أبي عمرو الداني كتاب ليله التيسير في القراءات السبع بنظمي waxaa kaloo jira oo iyagana caawa ijaaza lagu siinaya qaarkood dhalinyaradan الدرة في القراءات الثلاث المتممة للعشر marka Allah nagu barakeeyo waa usra xaqiiqatan mubaaraka
zawjadiisa zawjaad ka mid ana iyaduna waxay durrada way iga baxday kadalika jazariyadana way iga baxday Soomaaliya iyo tuxfaha saddexdaas iga baxday shaatibiga naftirkeeda waa iyagu shaatibigana way ka baxeen durradana way ka baxeen jazarigana way ka baxeen tuxfahana way ka baxeen fartaba way ka baxeen wiilasha ma qawaaya saddex wiil iyo saddex gabdhood ya haaska weeyaan kuwa kale waa jiraan oo iyaguna bartay wadankii jira Soomaaliya iyo qaar dooxa jooga marka lidalika ما شاء الله يعني جزاكم الله خيرا مشايخ إماتك هذلك تمادين يعني تكريم كان وأسرة تستحق يعني للترغيب وللتشجيع إن شاء الله بارك الله فيكم مركا إن شاء الله تعالى وحير نماذج كده جيسنا هناك بعدنا وحنسينا هنا إجازات كان سينا هنا إن شاء الله من سورة نون إلى سورة القيامة وضمهم في يزلقونك خالد ومن قبله فاكسر وحرك روا حلا ويخفى شفاء مارية ما هي فصل وسلطانية من دونها إن فتوصلا ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف له داع ويعرج رتلا اقرأ من أول الدرة هذه الدرة باللغة يا أخي قل الحمد لله الذي وحده على ومجده واسأل عونه وتوسلا وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلا كما هو في تحبير تيسير سبعها فأسأل ربي أن يمن فتكملا أبو جعفر عنه بن وردان ناقل كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا وأنا خطر وسأندي شيء خاندي ألعب تقول جيرانه شاطبي وحكى بدن شمللا يا شلشلة يا شمردلة وكذا وركمد هدي وقفته ما مساعي وأسوق هذا أنا وكبوحين هالكلام والميم أن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف الليذة لذي الحجة أحكامها ثلاثة لمن طبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغاما بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من حرف وسمها شفوية واحذر لذا واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. بارك الله فيك يا شيخ محمد. ولزوجة أخينا حسن الواجدي واسمها فرتون علي محمود فيستلمها له هو سواء قاضي مركز. تفضل يا شيخ حسن تعال هنا اجلس انت معي. جائزة كبيرة ما شاء الله. كان سعيد أهلا وسهلا مرحبا الله يكرمك تفضل الله يكرمك تفضل fadhigan gawashan munaasabadan caawa in aan ka soo qayb gallo sharaf bay noo tahay ardadaas haddana halka qoysa lagu guddoonsiinayo ijaazaadka Sheekh Cabdirashiid Shacri Suufi ilaaha barakeeyo qoyska waa Sheekh Xasan Alwaajidi qoyskiisii weeye waa markii ugu horeyseen kulanno laakiin netkan ka aqaan qiraa'adiisaan runtii sawtkiisaan aad u jeclaa maasha allah barakeeyo caawana reerkii oo wada ahlul quraan ayaan munaasabadeeda ka soo qayb galay oo runtii xifdigii quraanka intay ka gudbeen muxuu ahay mutuuntii علومة القرآن كسب صنيد هي قراءات خاصة laga dhageystay oo shahaadooyin la guddoonsiinayo aad baan ugu faraxsanahay waana ugu tahniyadeynaa runtii waxa la isugu tahniyadeeyay wixii ugu weynaa waa runtii waa sida sheekhu sheegay ama mashaayikhu sheegeen munaasabad fariida waa midaan oo kale ma aanan soo xaadirin hadda ka hor hal qoys aabe iyo caruurtiisii iyo xaasaskiisii oo dhammaan qur-aanka kariimka ahaa ilaahay subxaanahu watacaala kumanaystay xifdiyaan kadibna matuuntii qur-aanka kariimka ah iyo qiraa'aadka sheekh almaqaari uu ka dhagaysto yani waa wax aada iyo aada runtii u qiimo weyn
lagu daydana mudan insaan loo duubana way tahay oo dee dadka lagu faafiyo si loogu daydo dadkii adduunyadan hadda iskaba dhaaf mutuuntii iyo qur-aanka kariimka ahaa ayaa laga mashquulay oo xifdintiisii laga mashquulay oo malhiyaad kaleeto yacni guryihii tiifiyo moobilo alaabtii ciyaaraha alcaab shaashaad waxaasaa la keenayaa gurigii laga soo buuxinayaa mar guryihii marka waxaa laga soo buuxiyo ciyaalka maskaxdoodiiba waa tashwiish baa ku jirta kartoon iyo waxaa ku jira maaragtay filimo iyo muusiiqo iyo gaala ciyaaraysa markaasay qur-aankii dhammaaba ka fogaadeen marka tan waxay wacdi u tahay aabbayaasha waxay u tahay hooyooyinka mas-uuliyadda ka saaran waxay u tahay ilmaha darsiba u tahay iyo namuudaja marka sheekh xasan khayr allah siiyo sheekh xasan alwaajidi marka cabdililahna siduu hadda waajid ugu khaldamo xanaysa bal waajidna hala weydiino yaqaan waajid واجد يدنا في الكتاب ورنا بس أبوي اسمه واجد أبوي واجد لينا مركا إن شاء الله تعالى وأرهن تصالحه ونكسن شيخ حسن خير الله كسيو إلهي سبحانه وتعالى هبرك يسقى عرورتيس يحاسسكيس يديس إلهينا سبحانه وتعالى برشده أنها كوبضي يوكاليتو قرآن كي دين سداس مهمة أصية horta siday mashaaiikhdii igu horeysay tahniyad ay ugu direen familkan barakaysan ehlo qur-aanka ah ayaan aniguna ahay qof caawa aad ugu faraxsan inaan qof ka mida noqdo inaan caawa xaadiro cimrigayganu igaarsiiyo caruur yaryar oo aad weliba u yaryar anu hadda waxay akhrinayeen xabad kaba fahmay markaan runtiisa haddaba runtaan ilaahay baan ka baqayaa يعني ما لقى مركع عبار وذي أنا إيري كفهمي حبت أن كفهمي وإله أبوري إله أبورت الله ما أركو عرب كأي شبي لها بانو مالينا يهدادان آخر لها فعلا كتاب الدرده ها هذا أرضي خمد لك هذا مقرئوين ها في مكان حفظني ها والله خفت بالمصري ها إني كسر لساني بالضبط هرت وين موغتا بعد الحمد لله تبارك وتعالى وحان رمائنا ومهد عليو شيخي قالي شيخ عبد الرشيد شال السوفي أو رنتي يعني سبب هو خير كان مشان كذا حفظ كان الماء وحفظيان وايو أنت صومالي أن جوجني أما السعودي أن كون ولا واحد حفظيها بيرات مجرين صومالي نحواش ذو أحوال بإسكاهيد لكن كان سبب رئيسي أن نكون ولا ذو دوحة معلنتو في زها يسوى دميارين تهذا يمشي الدجيي وزير الأوقاف إيجي ورخوش هذا سكوت توستانو يعني مدحوين عمل يسوى دوينه دوحة أنقلي ما نتاسو خير إيه بالوضي الميه دانا سو أرور صديق مركا خير كأي حفظك عبد الله معلنتو أو دوحة وإيمانا لابد كن يطبني أفرتي سورة الفتح ومراي مو مسترنا القرآن كا حرم كل دمية مرة أن أدني فوازن دوحة كل دمية هذه كل دوحة كل دمية القرآن كدوحة بعد الله وحا إعاوية مركا يعني إيدادو ذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيدادو ذا إعاوية سيرنتي وزوجي ذا أو مقعد الله يعرفون كنا الدوحة هذا دوحة دقنتها يعني يوميا وحي آخرين جيرين 20 جزء يوميا لمدة سنة يكون دميين قرآن قرط سدح ذا وينه ده الحمد لله يعني شاطبي أفرت كتابه وضقاتي